من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصحابته halkan waxaan rabaa inaan idinku tusiyo wax yar oo ku saabsan sidii Excelka loogu analyze gareeyo data marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan ka faa'iideysiga aan wixii comment iyo aad rabtaan waad hoos ii soo dhigi kartaan mid kale like iyo share iyo commentiga haka hilmaamina iyo subscribe-ka waa mahadsantihiin hadda halkan waxaan ku haysanaa macallimiinta oo primary iyo secondary 2019 oo tirada guud ee macallimiinta waxaan rabaa marka boqolkiiba inta ay kala heleen inaan halkan idinku muujiyo marka waxaan sameynaynaa si aan tirada numberkan aan percentage ugu bedelno waxaan sameynayaa halkan waxaan soo qaadanayaa primary hoosna waxaan leeyahay secondary kadibna totalkii marka halkaas titlekii ahaa women ayaan qorayaa halkaas ku qorayaa halkaasna raggi ayaan ku qorayaa men kadibna sidii ay u kala heleen percentage-ka ayaan rabaa inaan hadda ka shaqeeyo iyadoo calculation kadibna percentage kadibna waxaan rabaa inaan u bedelo graph insha Allah waan idin tusi doonaa marka hore waxaan leeyahay equal waxaan taabanayaa tirada guud ee primary-ga ee dumarka oo 98 ayaan waxaan u qaybinayaa totalka guud ee dumarka kadibna waxaan ku dhufanayaa 100 kadib waxa ay soo baxo waxa la lahaa percentage boqolkiiba inta ay ka heleen waaye waa fahanteen haddana secondary dumarka ayaan ka rabaa inaan tuso sida looga shaqeeyo ee percentage loogu soo saaro equal ayaan leeyahay mar kale tirada secondary-ga ee dumarka waa 139 oo loo qaybiyay totalka guud oo lagu dhuftay 100 iyadana waxaa halkan aan ku heli doonaa percentage-kii secondary-ga ee dumarka kadib markii la isku daro labadan percentage waxaan rabaa inay hoos imaado 100 haddii tiradaas 100 ay noqon weyso waa khalad xisaabta marka hadda waa maasinta u jeedaan inay tahay tirada 100 markaan waxaan rabaa inaan xisaabiyo tirada ragga markooda percentage-kooda aan soo saaro okay waxaan u qaybin doonaa tirada primary-ga ragga waxaan u qaybin doonaa totalka guud kadibna waxaan ku dhufan doonaa 100 kadib waxay soo bixi doonaa percentage-kaas aad u jeedaan halkaas ayaa laga yareeyaa jajabka looga saaraa okay secondary-ga ragga ayaan haddana aan calculation ku sameynayaa waa 3110 oo loo qaybiyay totalka guud oo kadibna lagu dhuftay 100 isagana waa halkaas labadan total oo raggan waxaan rabaa inay noqdaan 100 percentage-kaas haddana waxaan fiirin doonaa inay tahay boqolkiiba okay oo ujeedaan waa mahadsantihiin intaasi waxaan hadda soo saarnay percentage-kii ragga iyo dumarka ay kala heleen primary iyo secondary halkan primary ragga dumarka waxay heleen 89 raggana 67 ay ka heleen secondary meesha ka heleen 11 dumarka raggana 33 kale marka waxaan rabaa inaan insha Allah kadibna aan hadda idinku muujiyo iyadoo oo marka ciwaankan waxaa la marka percentage distribution qaybinta boqolkiiba inta ay ka heleen ayaa la yiraahdaa Soomaali percentage distribution okay waa sidaas marka insha Allah intaas hadda waxaa noogu dhan casharka yaraa ee koobnaa ee ku saabsanaa sidii Excel data loogu analyze gareeyaa halkaas intee qaybta hore waa numberkii oo 98 oo primary-ga 139 secondary totalkooda wuxuu ahaa 1237 intan ragga waxay ahaayeen 6275 oo primary secondary-gana 3110 ayuu ahaa 9385 totalka ayuu ahaa sidaan waa totalka guud marka ayadana markaan ayaan ku soo saari doonaa ayadoo sex distribution markaas adeegsan doonaa hadda laakiin ma adeegsanayo totalkan oo primary ragga iyo dumarka isku daray oo 7373 leenkan hadhow adeegsan doonaa casharka labaad ee ku xigo waana mahadsantihiin